mararka qaar noloshu waxay ku geysaa meel aadan filanayn sida midda ku dhacday wiilkii Afrikaanka ahaa ee Alhaji Diouf oo ciyaaraya xulka qaranka Senegal wuxuu soo bandhigay hibo banooni oo marnaba aan indhaha laga dadan karin dhacdadii koobka adduunka ee ka dhacaysay dalka Japan 2002 kadib waxaa dhacday in 10 milyan ay ku qarash garayso kooxda Liverpool oo kala soo wareegtay kooxda Lens ee ka dhisnayd cariga Faransiiska noloshiisa waxay u weecatay dhanka iyo horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska laakiin halkaas waxaa ku duugmay xirfadii uu lahaa Alhaji Diouf oo ahaa mid qabsanayay dunida tan laba xilli ciyaareed uu ku sugnaa kooxda ka dhisan garoonka Anfield waxa uu dhaliyay Alhaji Diouf kaliya 6 gool waxay noqotay lama filaan iyo in ay caawinamataba xirfadii Alhaji Diouf isaga oo waraysi siinayay jariirada caanka ah ee Sky Sports muxuu ka yiri Alhaji Diouf waxa uu yiri waan ka qoomameynayaa in aan xirto maaliyadda kooxda Liverpool haddii aan dib u soo celin karo waqtigayga waa aan diidi lahaa in aan u dhaqaaqo kooxda Liverpool waxaana ku biiri lahaa Manchester United ama Barcelona oo xilligaasi doonayay saxiixayga waxaana xusid mudan laacibkii hore ee xulka qaranka Senegal Alhaji Diouf inuu isaga fariistay kubadda cagta sanadkii 2015 laakiin wuxuu ahaa mid ka mid ah xidigihii ugu wanaagsanaa ee soo mara qaaradda dadka madow ee Afrika tani waa sheeko yar ee ku qotanta nolosha Alhaji Diouf ka faa'iidayso waqtigaaga si aadan dib ugu qoomamayn waa fariin ku socota ciyaartooyda maanta